Laamaha amniga ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa diiradda saaraya sidii loo adkeyn lahaa ammaanka koontaroolada laga soo galo magaalada Muqdisho oo dhan si looga hortago in magaalada la geliyo carqaladeyn amni oo la xiriirta arrimo siyaasadeed. Ilaa-wareedyo ayaa sheegaya in taliska ciidanka booliiska uu Khamiistii ciidamo dheeraad ah geeyey koontaroolada ku yaala bannaanka magaalada, kuwaas oo lagu xoojinayo ciidamadii horey ugu sugnaa goobahaas. Wararka ayaa sheegaya in saraakiisha booliiska ay sidoo kale ciidamo cusub geeyeen meelo ka mid ah degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Ciidamadan ayaa loogu talagalay inay ka hortagaan gaadiidka dagaalka iyo ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ee imaanaya magaalo madaxda dalka ee Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jenaraal Asad Cismaan Cabdulaahi ayaa shir gudoomiyey kulan ay ka qayb galeen saraakiisha saldhigyada booliiska gobolka Banaadir. Taliyaha ayaa saraakiisha faray inay adkeeyaan ammaanka baraha koontaroolada, isla markaana gaadiidka soo galaya magaalada ama kuwa ka baxaya ay maraan habraaca amniga si looga hortago khatar kasta oo lid ku ah xasilloonida. Sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska booliiska, tallaabadan ayaa loo arkaa mid looga sii hortagayo dhaqdhaqaaq ciidan oo kasta oo siyaasiyiinta mucaaradka dowladda federaalku ay ka samayn karaan magaalada Muqdisho, maadaama ay marar badan ku hanjabeen in ay rabshad sameynayaan haddii la gaaro 15 May. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa maalmahan kulamo ku lahaa Muqdisho, iyagoo ka arrinsanaya tallaabada ay qaadi karaan marka la gaaro 15 May oo sida ay sheegeen ku eg muddo xileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Mucaaradka ayaa ka soo horjeeda muddo kororsi ay u badan tahay inay sameyso dowladda madaxweyne Xasan Sheekh. Muddo kororsi kasta oo hal dhinac ah ayaa ka careysiin kara siyaasiyiinta aan la dhacsanayn siyaasadda uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku maamulayo dalka. Inkasta oo ay aad u yar tahay in mucaaradku ay helaan ciidamo u dagaalama ama weerar ku qaada magaalada, haddana dowladda federaalk ayaa la sheegay in aysan qaadanayn wax fursad ah ayna isku dayeyso in ay ka hortagto suurtagalnimo kasta. Sidoo kale, inta badan shacabka Muqdisho iyo odayaasha beelaha Hawiye ayaa ka soo horjeeda in rabshad lagu raadiyo xal, taas oo sii wiiqaysa mucaaradka. Bishii Abriil ee 2021 ayaa Muqdisho waxaa ka dhacay dagaal dhex maray ciidamo ka tirsanaa dowladda oo kala taageera madaxweynihii xilligaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kuwa taabacsanaa mucaaradka oo la baxay Badbaado Qaran, taas oo ka dhalatay muddo kororsi uu sameeyey madaxweyne Farmaajo. Rabshadahaas ayaa ku qasbay Farmaajo in uu ka laabto muddo kororsigii, isla markaana la aado doorashooyin dadban oo horseeday